markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono, sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha. dagaalkaas waa socdaa, guulo la taaban karo ayaana laga gaaray, gaar ahaan deegaanada galmudug, koonfur galbeed iyo hirshabeelle. dadka soomaaliyeedow, argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad, danna kama laha. waxaa mabda u ah cabsigelinta, bahdilka iyo gumaadka shacabka, oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabateynta abriyada gargaarka u baahan. waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyey, kaas la sii sido. dadkii hoteelka xayaad joogay maxay bi'iyeen? ceelashii tuulooyinka teedaan, bukure, inabaal ma murtadiin ayay ahaayeen? boqolaalkii bermageydada ahaa ee 14 Oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen? dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowreyd oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan sow ma ahayn? waana dhaqankooda in mar kasta oo guuldarro la kulmaan si nafla caarinimo ah in ay ugu soo laabtaan shacabka oo ay xasuuqaan. astaantaas waxaa la yihaha heliliqo ama neef gowracangeeda kama waabto. aayaddii qur-aanka kariimkaas sow ma ahayn waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam? oo xadiidkii rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam ma ahayn khawaarijtu waa kilaabu الnaar? oo xadiidkii kale ma ahayn qofkii qof dila wuxuu la mid yahay isaga oo dadka oo dhan dilay? dadka soomaaliyeedow, walaalayaal, dadka ilaahay iyo rasuulkiisa suubanaay saas ku sifeeyeen, cudurdaar ma leedahay in loo cadaalad doonto, in dhaqaalo la siiyo, in guri laga kireeyo, in la qariyo ama la dhuumiyo isaga oo dhagar maleegaya? ma aha inay diin laawayaal yihiin oo keliya, ee waa mas dilaa ah oo marada kugu jira. mas dilaa ahna xalkiisu waa dil intii uusan ku dilin. shacabka soomaaliyeedow, waa ogahay inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quus ka taagan tihiin. waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroor diiqda joogtada ah. waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel, walaal, hooyo, aabbe, qaraabo iyo saaxiibo. waan ogahay inaad weliba dowladda soo dhowreysaan. intaas iyo kan badanba waan ogahay. maxaa yeelay idinka ayaan weligeyba idinku dhex noolaa oo xogogaal baanu ahay duruufaha idinku gadaaman. hase yeeshee waa hubaal soomaaliya waa ay ka guuleysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda, dadkeeda iyo diintoodaba. dowladdeenna, ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal soomaaliyeed argagixisada ka caagan, cadaalad iyo nabad ka jirto oo barwaaqaysan ilaahay idankiisa. in yoolkaas aanu gaarna waxay u baahan tahay adkaysi, nafuranimo, geesinimo iyo ka go-naan. waxaan bogaadinayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida dhiiran iyo geesinimada leh oo ay dagaalka ugu jiraan. gaar ahaan waxaan bogaadinayaa ciidamada qalabka sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin la dagaalanka argagixisada. sidoo kale shacabka degan gobolada dalka ee iyagoo abaar la tiicaya haddana diiday dulmiga argagixisada.
sida aan sheegay bilowgii horeba dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go-an in colaada gaamurtay ee argagixisada al-shabaab lasoo gabagabeeyo. sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireeyayaal daahsoon oo u taagan fashilinta dhagarta kooxaha argagixisada ah. argagixisadu annagay nagu dhex nooshahay, waana inaan iska qabannaa. isbeddel waa inaan ka keennaa sida aan argagixisada ula dhaqmaynaa.